Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal sida la socotaan dhowaan waxaa isbedel muuqda lagu sameeyay maamulka deegaanka gubta guud ahaantiis. Qaar ayaa la magacaabay, qaarna waa la dalacsiiyey, qaarna meeshii ayay ka baxeen iyo shaqadii shalay ay hayeen. Saameyntaasi togan waxa ay saameysay maamulka Waaxda Barwaaqo, waxaana meesha ka baxay gudoomiyihii hore ee Waaxda Barwaaqo, waxaana la magacaabay gudoomiye cusub. Haddaba marka loo eego deegaankan gubta baaxadda weyn, waaxda ugu liidata xagga bilicda iyo wadooyinka waa Waaxda Barwaaqo. Laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibada waa mahadsantahay. Waaxda Barwaaqo ma lahan wadooyin dhammaystiran oo maanta wadooyinkaasi loo mari karo haddii uu roob da'o iyo haddii ay jiilaal ama abaar tahaba. Barwaaqo wado sax ah oo maanta loo geli karo ma lahan. Barwaaqo sidoo kale ma lahan aasaasiyaadka bulshada waxyaabihii u baahneed, waxaana barwaaqo hadda ay tahay mid aad ugu dambeysa xaafadaha kale ee deegaanka gubta. Haddaba gudoomiyaha cusub ee deegaankani ama waaxdani waxaa horyaala kow in uu dhammaystiro interlockan qabyada ah ama oo warbixin sax ah ka keeno maxay wadada u socolaadahay. Labo in uu furo wadooyinka hadda xiran oo shay u xiran ama reero u xiran ama u xiran siyaabo kalaba. Saddex gudoomiyaha waxaa laga rabaa rafaadka iyo dhibaatada ka jirta halka suuq ay leedahay waaxdan ee suuqa saxaraha inuu wax ka qabto ama uu warbixin ka soo saaro. Waxaa jirta wado weyn oo halbowle ah taas oo ka imaado isgoyska Carwo-idka halkaas soo marto ilaa ay Diile isku xirta. Wadadaasi hadda aan kula hadlayo gebi ahaanteedba way go'an tahay oo waa laga wareegsadaa, waxaana sababay roobkii yaraa ee xalay iyo habeen hore da'ay. Dadka ku nool deegaankaasi waxay u dhib qabaan wado la'aan. Caqabadda afaraad ee hadda haysata Waaxda Barwaaqo waxaa ka mid ah biyo la'aan. Mana lahan BL ka shaqeeya si toos ah halkaasi, kaliya mararka qaar xilliga soo hoyaadka ayaa la helaa BL dadku ay soo raacaan, laakiin inta badan waxay isticmaalaan taas oo hadda qaarkood waxaana jira dad ka lugeeya Barwaaqo ilaa iyo goobahooda ganacsiga ee bakaaraha. Sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin xagga habeenkii ah oo dhammaan waxaa hadda xaafadda ku sii yaraanaya leerarka habeenkii ah, waxaana ciiduhu ay noqdeen kuwo leerarka kusoo koobay gudaha guryahooda, laakiin gebi ahaanba la joojiyey wadooyinkii bannaanka ahaa. Sidoo kale waxaa isbedel uu ku imaaday xagga amniga oo dadku hadda waxay dareemayaan amni la'aan maadaama tuugada dhacda moobeelada hadda ay saameyn ku leedahay Waaxda Barwaaqo. Taasna waxaa la rabaa maamulka cusub in uu wax ka qabto arrinkaasi. Haddaba intaas iyo in kale oo hadda aniga maskaxdayda ka maqan ayaa haysata dadka deegaanka Barwaaqo, taas ay uga fadhiyaan gudoomiyaha cusub Isxaaq Macalin Xuseen in uu wax ka qabto ama warbixin uu ka soo saaro. Laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibada waa mahadsantahay. Daawadayaal warbixinteennii ayaa weli ku jirnaa. Sida aad la socotaan wadadan waxay ka mid tahay wadooyinka waaweyn ee dhexmara waaxda cusub ee Barwaaqo, taasoo laga rabo in maamulka deegaankan Waaxda Barwaaqo ay wax ka qabtaan. Wadadan waxay ka imaataa sida idiin muuqato ilaa iyo isgoyska Carwo-idka, waxay soo martaa warshadaha, waxayna tagtaa ilaa iyo cisbitaalka Daynile oo ah halka ugu sareysa ama cirifka waqooyi ee magaalada Muqdisho. Wadadani marka ay roob imaadaan waxa ay tahay wado u xirmata biyahani ayaka oo dadka deegaankana ay dhib ku qabaan. Wadadan biyaha lagama saaro, dadkuna waxay qabaan dhibaato aad u fara badan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay qabaan dhibaatooyin wadadani marka ay roob imaadaan. Mid ka mid ah dadka deegaanka wadadani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي ياسين عبد القادر ولي oo ka tirsan degmada Daynile. Intii wadadan waxyaalo badan maaragtay ku qabnaa. Waxa kamid ah roobka marka uu jilay afartan dhinac biyo ka yimaado. Inta kale wadadan waa wado weyn oo caan ah. Waxay ka tirsan tahay degmada Daynile. Dadkan hadii la aado waxay aadaysaa ilaa istaaga Daynile. Dadkan ilaa waxay tagaysaa ilaa maaragtay wariile hoos ilaa toos
jid mareexaan ilaa wadada weyn wadada caana waaye marka wadadan waxay u baahan tahay in maaragtay oo madaxweynaha maaragtay inuu ku maaragtay kusoo maaragtay sheegid kasoo hadlo oo wadadan maaragtay sameeyo dadkii gaadiidka dadka xaafadda dadka dukaamada wax dhan dhibay ku qabaan marka sidaasaa maaragtay ani sheegayaa